Exclusive breastfeeding naasnuujinta baraxa tiran waa in cunuga yar ee dhashay ee hooyadu nuujiso naaska isla mar ahaantaana aanan la siinin wax ka baxsan caanaha naaska uu ka helayo 6 bilood ee ugu horeysa noloshiisa markii laga reebo waxyaalaha daruuriga ah ee uusan ka maarmaynin oo ay ka mid yihiin faytamiinada qaarkood oo jirkiisu uusan awood buuxda u yeelan in uu soo saarto xaddi ku filanna uusan ka helin caanaha naaska. Faytamiinadaas waxaa ugu fitamiinka loo yaqaan vitamin K. Vitamin K-gu wuxuu muhiim u yahay samaysanka xinjirowga mana awoodo ilmaha yari in uu soo saarto xaddi ku filan. Sidaa daraadeed, haddii ay ilmaha yari ku dhashaan isbitaal ama goob caafimaad, waxa ay howlwadeennada caafimaad markiiba siinayaan cirbad ama injection ka samaysan vitamin K. Markii laga tago waxyaalaha noocaas ee daruuriga ah oo ay dhaqaatiirta iyo howlwadeennada caafimaad kula wadaagayaan, ma jiro baahi kale oo ilmaha yar uu u qabo in la siiyo wax ka baxsan caanaha naaska. Hooyooyinka Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin in ilmaha yari uu u baahan yahay biyo, iyaga oo u haysta in caanuhu yihiin cunto uusan ilmuhu ka helaynin biyo ku filan. Waxaa masaasada loogu shubaa biyo iyadoo la isleeyahay uusan haraadin, balse ilmaha yarka ah Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu naaskaasi ugu diyaariyey caano u buuxin kara booska cunnada iyo biyaha. Ilmaha yar marka ay dhashaan, habka dheefshiidkoodu ma dhammaystirna mana u shaqayn kara si lamida sida dadka waaweyn. Sidaa daraadeed ma xamili karo cunto kasto. Ilaahayna wuxuu u sameeyey cunto dheefshiidkooda uu xamili karo, nafaqooyinka jirkooda uu u baahan yahay ay ka heli karaan, isla mar ahaantaana aan wax dhiba uga imaanaynin. Oo haddii aad u fiirsato, caanaha naaska ka imaanaya laftooda waa ay kala duwan yihiin iyada oo lagu salaynayo hadba korinshaha cunuga iyo inta uu dhalan yahay. Caanaha ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa colostrum. Soomaalidu waa taqaanaa, waa caan, waxay u yaqaanaan dambar. Dambartu ama colostrum-ku waa caanaha ugu horeeya ee naaska hooyada kusoo dhaca markii uu ilmaha dhasho, balse nasiib darra dhaqankeena Soomaaliga ah qaarkiis waxa uu aaminsan yahay in caanahaasi aan ilmaha la siinin oo waa ay daadiyaan, waana nasiib darro weyn. Caanahaasi waa caanaha ugu qiimo badan. Caanahaasi waa caano adag, kalarkoodu uu yahay jaalac xigeen, waxaana kalarkaas siinaya maado ka mid a maadooyinka caanahaas ku jiro oo loo yaqaano beta carotene. Maadadaas waa maadada laga sameynayo vitamin A oo ka mid ah waxyaalaha muhiimka u ah ilmaha, khaasatan koritaanka qayb isha ka mid oo loo yaqaano retinada iyo dhammaan unugyada dahaara godadka jirka oo idil iyo xididada ee loo yaqaano epitheliumka noocyadooda kala duwan. Sidoo kale waxa uu qayb ka qaataa in kor loo qaado difaaca jirka. Caanahaasi colostrum-ka loo yaqaano waxaa loogu talagalay in ilmaha lagu qabto oo ay wax badan ay ka helaan, kadibna caanahaasi marba marka dambe isu isbedelayaan. Marka colostrum-ka uu dhammaado ama caanihii ugu horeeyay ee naaska hooyada kusoo dhacay ee dambarta loo yaqaanay, waxaa kadib bilaabanaya period kale ama xilli kale oo loo yaqaano post colostrum period, markaasi oo caanihii hooyada naaskeeda u isbedelayaan, transitional milk wax la dhaho isku bedelaan, kadibna waa isii matalayaan, isii bedbedelayaan ilaa mature milk wax la dhaho oo ilmaha ku habboon korinshihiisana la socda la soo saaro. Waayo ilmaha marba marka dambeysa oo sii koro waxaa isbedelayo baahida uu qabo, oo tusaale ahaan baahida uu u qabo faatka, baahida uu qabo borotiinka, waxyaalaha carbiska oo energy-ga uu u baahan yahay inuu ka helo. Markasta uu sii weynaado waa sii badanayaan. Mineralska iyo vitaminskuna waa ka mid yihiin waxyaalaha uu ka helayo naaska. Sidaa daraadeed, ilmaha inta 6 bilood ugu horeysa oo ku jiro uma baahna in la siiyo wax kale. Shirkaduhu waxay keenaan caano powder ah oo caano boora la dhaho. Caanaha noocaasa wax faa'iido ah ma u lahan ilmaha yarka ah, iska daa inay faa'iido u leeyihiin koriinkiisa iyo caafimaadkiisa iyo hanaanka difaaca jirkiisaba khatar ay ku yihiin, maadaama ay yihiin waxyaalo processing soo maray. Maxaa la yiraahdaa, waxay leeyihiin waxyaalo oo cunuga khatar ku keeni kara. Sidaa daraadeed, ma habboona in caanahaas la siiyo. Dadkan waxay u soo sameeyeen for business purpose ama ganacsi u soo sameeyeen, magacyo lagu soo qoraya, waxaa lagu leeyahay bilaha ugu horeeya la siiya, laakiin ma jiro wax u dhigma caanaha naaska hooyada uu ka helayo cunuga oo la siin lahaa ama bedel u noqon lahaa. Sidaas daraadeed, waxaa habboon hooyada inay ku baraarugto wixii iyada ay siin lahayd cunuga inay iyada cunto. Markasta oo hooyada ay hesho nafaqo ku filan, iyada caanaha cabto, caano boor ay cunuga siin lahayd inay iyada cabto, iyada inay nafaqooyin badan qaadato, isku daydo markay ilmaha naaska siinayso inay xaalad deganaan ku jirto. Haddii intaas la helo, cunuga naaskiisa ku filan oo Ilaahay ugu talagalay, ma u baahno in wax kale oo dheeri ah la siiyo. Sidaas daraadeed, waxaan ku talinaynaa markasta in la ilaaliyo naasnuujinta baraxa tiran oo ilmaha 6 bilood ugu horeeya la siiyo naaska, wax kalena aan loo raacin. Waa mahadsantihiin.